iyadoo diyaaradda hoosteeda madaxweynaha lagu soo dhaweynayo dabcan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda magaalada laascaanood soo gaaray waxaad arkaysaan madaxweynaha waxa uu dabcan gacan qaadi doonaa isla markaana uu salaami doonaa dhammaanba xubnaha halkan ku soo dhaweeyey laakiin ka hor madaxweynuhu salaan sharaf ayuu qaadan doonaa waxaad daawadayaal daawanaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dabcan qaadan doona salaan sharaf madaxweynaha waxaa salaanta u qaadi doona taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeyagaas asad cismaan salaanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa daawanaysa madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadka reer laascaanood saacado badan iyo maalmo iyo sannado ay sugayeen kadibba si rasmi ah ayuu markan laascaanood u soo gaaray waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada laascaanood dabcan waxaa madaxweynuhu hadda isaga oo uu dhinac taagan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari isla markaana salaan sharaf uu ka qaadan doonaa cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed salaan sharafka madaxweynaha waxaa guddoomi doona ama u qaadi doona taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa toos nagala socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed